taariikhdu waxa waaye 28 bisha afaraad 2022 bisha barakeysan ee Ramadaan iyaduna waxa ay maraysaa 16 waa habeenimo khamiis soo gelaysa waaye waxa aan halkan u fadhinaa tartan aqooneedkii u dhaxeeyay bisha barakeysan ee Ramadaan tartankaas waxa u dhaxeeya fasalada dugsiga hoose dhexe sare ee Jeneraal Maxamed Abshir Muuse oo markaasi ay taabigelinayso hay'adda IHAD si toos ayaan u bilaaban doonaa caawa waxa ku balansan laba group oo la kala yiraahdo magaca Abubakar Sadiq iyo group kale la yiraahdo Dhagaxtuur hadda ayuu tartanka si toos u bilaaban doonaa tartankan quruxda badan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu mahadcelinaynaa sida qurux badan ay u taabigelinayaan hay'adda islaamiga ah ee IHAD aad been ugu mahadsan yihiin sida wanaagsan markaas u dhiirigelinayaan ardayda aqoonta ciidanka booliska Soomaaliyeed tartankaas waxaa ka wada shaqeeya dhammaan macallimiinta xarunta si gaar ah waxa u xilsaaran guddi ka tirsan macallimiinta xarunta guddiga oo qaarkii hadda halkan ila fadhiyo oo ugu horeeyo dhinaciga bidix macallinka fadhiya Professor Ali Macuud Dalxa oo ah gudoomiyaha tartanka ahna gudoomiyaha isboortiga xarunta kana mid ah macallimiinta wax ka dhigta xarunta dhigana maadada cilmiga bulshada sidoo kale dhinaciga midig waxaa fadhiya macallin Cabdalla oo isagana ah macallin ka tirsan macallimiinta xarunta wax ka dhigta dhigana maadada xisaabta kana tirsan guddiga macallinka xiga waa macallin Cabbaas Ali Macuud Dalxa isaguna guddiga ayuu ka tirsan yahay wuxuuna ka mid yahay macallimiinta xarunta wax ka dhigta waxa uuna dhigaa maadada technology-ga dhammaanteen waxaan idin leenahay habeen wanaagsan Ramadaan Kariim labada arday ee kala fadhiya labadeena dhinac guddiga dhinaca midig waxaa ka fadhiya Cabdullaahi Khaliif Jaamac arday la dhaho waa arday dhigta fasalka 7aad wuxuu halkan u fadhiyaa inuu dhibcaha siiyo groupkiisa caawa uu taageerayo waa Abubakar Sadiq inuu halkaas ku maaweeliyo oo dhibcaha siiyo oo ma aragtay taageero groupkiisa dhinaca bidix guddiga waxaa ka fadhiya ardayad Shariifo la yiraahdo dhigatana fasalka koobaad iyaduna waxa ay markaasi dhibcaha siin doontaa groupkeeda Dhagaxtuur labadaas arday habeen walba laba arday aan fadhiisanaa si markaasi tartanku u noqdo tartan dhameystiran dhinaca maaweelo ka ah dhinaca aqoonka waayahay anigana daadiyaha barnaamijka ayaan ahay si toos ayaan markaasi u gudgaleynaa su'aasha ugu horeysa ayaan ku hormarayaa la weydiin doono Abubakar As-Sidiq su'aashu waa su'aal diini ah waxaana la weydiin doonaa groupka Abubakar waxa ayna su'aashu u dhacaysaa sidatan waxay dhameystiri doonaan suurad kamid ah suuradaha Quraanka ee soo socota hal daqiiqo ayaa fursad la siin doonaa si ay markaas ugu soo tashadaan ardayga suuradaas u akhrin doona suuraduna waa suuratu Duha waxaana la siin doonaa hal daqiiqo si ay u soo tashadaan